وزارة عصمة بسولوين إن شاء الله إنه أخير هذا وأنا مناسبتي أنت أنا نصر شق السنة مع waxaanu nimid iyadoo ay jirto dhaqaale xumo baahsan iyadoo aanan garanayn sidaan mushaarka ku bixin doono iyadoo uu taagan yahay musuqmaasuq baahsan iyadoo uu jiro dhaqan ah qof waliba meeshuu fadhiyo isagaa iskale dawladdu waxay dejisay nidaam dhaqaale oo aanu aragnay aniga iyo madaxweynuhu waqtigaa isaga ah welina aanu aragno in la helo kaabayaal dhaqaale oo shaqaynaya iyo hay'ado dhaqaale oo shaqaynaya inay tahay laf-dhabarta dowladnimada waxaanu nimid maamulka dowladnimo oo hooseeya wasaarad walba wasiir walba oo yimid wuxuu ku arkayaa raadka kii ka horreeyay sababtoo ah dadka ka tegay qabiilkiisa ugu badan kuwa ugu caqliga badnaa waxay sameeyeen inay yiraahdaan si aan aniga la ii ogaan kuwa qabiilkaada ii keen anna waxaan kuu keenayaa kuwa qabiilkayga kuwii keenay caqli ah inay qariyaan qabyaaladda iyo musuqmaasuqa iyaguna sidaas ay yeeleen maadaama madaxda qaranka ay tahay iyagu inay aaminsan yihiin meesha ay joogaan inay qabiilkooda keliya keenaan oo aan wax la dhisin way sideeda ahaato oo la sii dumiyo shirka golaha wasiirada markii ugu horreysay oo fariistay wasiir Khadiijo ay waxay tiri wasaaro waa kula talinayaa arrimaha tirinta ciidanka iska dhaaf arrimaha amniga iska dhaaf mid walba ku soo fashilmay adiga ka horreeyay haddaad tirisaan ciidanka waxay la mid tahay idinkoo nuclear weaponka Ciraaq laga waayay ka soo helay ma ahan inaan dad la soo safi karin oo la tirin karin oraadaasi waxa ay salka ku haysaa musuqmaasuq baahsan ayaa ka jira kuwa tirin lahaa ayaa isbaara ku dhiganaya kuwa madaxda ahaa ayaa hor taagan qof waliba wuxuu ka fiirinayaa dan soke dan qabiilada kuwa la soo magacaabay oo la rabay iyagu inay ahaadaan hormuudka isbeddelka mustaqbalka kuwaasaa qayb ka noqonaya dhaqankii meesha ka jiray taasaa keentay amni darrada marka taasaa keentay inay 10 sano ka badan ay nala joogaan ciidamo ajnabi ah dhaqan noocay waxaanu nimid aniga fahamkayga dhaqan ah in la aaminsan yahay inay siyaasaddu tahay wax dan gaar ah lagu gaaro halkan waxaan ugu nimid dhaqan la yiraahdo aan siyaasi noqdo si aan wax u helo halkan waxaan u nimid dhaqan ka duwan dunida oo ah siyaasaddu inay tahay tan wax lagu dhiso amniga looga shaqeeyo dhaqaalaha lagu kobciyo hami fog oo 50 sano la jaaxo keenu wuxuu noqday dhaqan ku daxalaystay musuqmaasuq iyo qabyaalad iyo lalaab dhaqan u samaysan in qofka wax walba lagu aqbalo dhaqan u samaysan in runta la isu sheegin dhaqan ay ceeb ka tahay siyaasad ahaan in la isla xisaabtamo dhaqan ay wax dumiddu ka qurux badan tahay wax dhisidda halkan waxaan ugu nimid dhaqan in dawladnimada laga qowlaysto dawladnimadu inay qowlaysatanimo tahay inaad dhulka dawladda ku takrifali kartid inaad sare dheer ka dhisan kartid
in markaa meesha sarta dheer aad ka dhisatay oo la og yahay aad inaad soo xaday lagugu yimaado lagugula xafladayo waa dhaqanka aan halkan u nimid si dhaqankaasi u jiro marka siyaasadda aan dalka ugu nimidna waxay u dhigtay isbaarooyin waaweyn oon ka soo shaqaynaynay ku dhowaad 2 sano la soo dhaafay waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo in madaxda dalku aanay wada shaqayn in wasiirku uusan shaqadiisa daacad u ahaan laakiin dan gaara uu daacad u noqdo in la waayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wada shaqayn kara in shuruuc in la ansixiyo ay ka muhiimsan tahay in wax la dumiyo waa xaqiiq waa dhaqanka aan dalka ugu nimid dhaqanka dalkan ugu nimid waxay tahay in shiikhu wuxuu ka hadlayay oo ahaa ammaanada iyo macnaha ay leedahay inaan laga wada hadlin inaad ammaano daran tahay inay faan tahay in dadkii Soomaaliyeed xataa kuwa mustaqbalka raba inay wax noqdaan ay ka sii fikirayaan dhaqankaas haddii laakiin hamigu yahay waxaan rabaa inaan wax noqdo si qabiilkayga igu dhahaan wax weyn baad qabatay ama aan guriyo u dhisto ama aan isugu ilaaliyo dawladnimada anigu waa dhaqanka meesha aan ugu nimid oo ah in wax laga bedelo macnaheedu waxay tahay marka haddii la rabo in la dhiso nidaam dawladeed waa in lagu dhisaa aqoonta iyo xirfadda ugu sarreysa qofkii xanuunsada wuxuu raadsadaa dhakhtarka ugu wanaagsan kan guri dhisanayana wuxuu raadsadaa injineerka ugu wanaagsan kii bangi furtana qof aqoon leh oo haysta ammaanada ugu wanaagsan qiyaasta dawladda Soomaaliya dad marka loo raadinayo dadka loo raadiyo waxay yihiin 15 milyan oo Soomaaliyeedna waxaa la rabaa in horumar la gaarsiiyo waliba iyadoo saasa xataa wali dooda dalkeena ka socota maanay gaarin in runta la isu sheego uu doodaas miiska soo dhigi lahayna waa annaga ma lagu sugaayo inaad meeshan isaga fadhido adigoo ah dalalka Afrika ugu khayraadka badan mid ka mid ah meesha ugu wanaagsan ku yaal haddii qaabka marka aan dawladnimada u rabno oo ah in dhaqankii hore la bedelo in qaar ay aqbalaan in dhiigga loo shubo in dhaqankaas la bedelo maanta meesha aan joogno waxa ay tahay ganacsatadeennu dunidii ku kala fiirsan tahay waayo dalkooda kama ganacsan karaan kuwa xawila lacagtooda bangi ay ku soo shubaan ma helaan sababtoo ah adduunyadan ogolayn maanta macnaheedu waxay tahay hay'ad shacbiyadeed oo dunida laga leeyahay oo $1 billion haysata oo dalkaada inta timaado isku aaminaysa ma jirto haddaan lagu aamini karin marka haddaan lagugu tashan karin haddii aad amniga dariska iyo dunida khatar ku tahay macnaheedu waxay tahay waa in khatartaada la iska moosa waxaan rabaa marka sawirka dawladnimada laga qabo gaar ahaan annaga halkan isugu nimid inaan xoogaa annaguna isfahamsiino ummadana fahamsiino isbeddelkaan rabno marka waa sidiisaba isbeddelku waa qof Soomaaliyeed ama qof walba oo dunida joogta ama bulsho
وأقبلي سيدي يفكران أما فعل هذا يكون رغمان إنه يبدلان سببته هو يسوار كان إنه حماية كوفر وبالشدة وحبنا الولاد كذا بالدشاء يضع غضاء هير أما هي ملع الصب ويسليهين ويكون أكسنتها تاني هذا كجيران سبدلكو وأنا مفكر أهان أمرك أنا أهان أن أوتقنه وأن كتقنه ماشي أن جوجني كدل دور سنو حالة دمرك أن كسوغن هاي وأهمدا سلوك سنة لكن سي أن أوتقنه وأنا وذا أقبلنا حالة أن كسوغن هاي أنا تايمدا سلوك سنة سبدل كوحي ماذا مركي بلشو انتي دباتو علاادات mid dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo adag soo gasho ay aqbasho dariiqa kaliya oo u furan inuu yahay in wax hore wax laga bedelo قبيلة أورون الصوت تجنعان إن أنت رايون قبيلة أورون الصوت تجنعان تلقوا بينو لو تايلين محاتقان تلقوا بينو لو تايلين محاتقان سويا ويان لو تسالي محاتقان سويا ويان لو تسالي محاتقان لو تسميا محاتقان طريقة محاتقان سرنت كفتي أيا تقان تلقى ويدو دعدي أيا تقان سرنت راسو كفتي أيا تقان تلقى ويدو دعدي أيا تقان تلقى سيتو لنتي أيا تقان محا تقان تمردينو اسكتان تلكو بينو لو تايلين محاتقان تلكو بينو لو تايلين محاتقان سوريا ويان لو تسقالي محاتقان سوريا ويان لو تسقالي محاتقان لو تسميا محاتقان طريقة محاتقان كرنت راسا كفتي أيا تقان تلسا ويدو دعدي أيا تقان كرنت راسا كفتي أيا تقان تلسا ويدو دعدي أيا تقان تلسا سيكتو لنتي أيا تقان محاتقان
tagnaan tala ku goyno lo taagniye maxaa taqaan tala ku goyno lo taagniye maxaa taqaan tobiya weeyaan lagu tisqaade maxaa taqaan tobiya weeyaan lagu tisqaade maxaa taqaan loo tartamaya maxaa taqaan dariiqada ayaa taqaan turuntu raaco kuftay ayaa taqaan talabsan waydo dhacday ayaa taqaan turuntu raaco kuftay ayaa taqaan talabsan waydo dhacday ayaa taqaan taladiseegto luntay ayaa taqaan maxaa taqaan tamaradeno isku tagaan tala ku goyno lo taagniye maxaa taqaan tala ku goyno lo taagniye maxaa taqaan